xaajigu ilaa dhalashadiisii ilaa dhimashadiisii wuxuu ahaa nin hawlo fara badan soo maray waxa la yiraahdaa isagoo sidoomeeyo sano meelahaas ay wadanka ka tagay Carabaha waxaana la sheegaa waqtiyada qaar kood inuu arday ka ahaa jaamacadda Asar mararkii dambana ragii baa mushtarka ahaa ee adduunyada u kala gooshay oo kamid ahaa marar kalena ragii dawladda Cusmaaniyada la shaqeynayay inuu kamid ahaa waqtiyadii Falastiin la qabsanayay waxa la sheegaa in Falastiin joogay waxa kale oo la yaqaanayo iyada macruuf ah in uu ciidamadan booliska Sacuudiga ragii dhisay kamid ahaa taariikh fara badan buu leeyahay oo runtii iyadu aan qoraal aynaan ku haynin laakiin war ahaan inagu soo gaadhay wax badanna ay tahay mid la hubo xaajigu waqtigii dambe ee dhowriyay lixdanaadkii waxa uu soo gaaray oo ku soo noqday wadankiisa Soomaaliya dhowriyay lixdanaadkii intaan soo noqoshada qiyaastii imsa sano ayuu maqnaaba wadanka ka maqnaa waxa lagu qiyaasayaa 60 inuu xaajigu ilaa 60 sanadood wadanka Soomaalida ka maqnaa dabeetana isagoo dhowriyay 90 jira dhowriyay 40nadii uu dib ugu soo noqday wadanka Soomaaliya waqtigaasi oo ahayd waxan ay dagaalka labaad ee adduunka inagu sheegaanay markii uu sii gabagaboobay dabeetana waxa uu la soo noqday isaguna gobonimo doona